السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها الصوماليات أدباندي سلام يا ومركلة إيه برنامج كني لحرب وحمانت برنامج كإنه وجود ديار ولكن محمد إنجنير محمد موسى عثمان محمد سودو ولاله waa dhowahay waa aad baa u mahadsan tahay aanina qorane waxa way magacaygu waa maxamed muuse cismaan waxaan joogaa Soomaaliya waxaan joogaa gaar ahaan waxaan kasii joogaa magaalada Boosaaso ما شاء الله محمد ولاله إيه محن كده هذايا ولا لها كلام hore waxaanu ognahay maxamed horta waa founder ka tirsan shirkadda Mombasa sooriyana tahay idinka halmaamin waa nin maxaan ku dhahay founder ah maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay maxamed inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid maanta maxamed oo hore waxaan wada ognahay oon horena uga soo hadalnay aniga gudoomiye Cabdi Cali Sow shanta tiir ee shirkadda Mombasa ku dhisan tahay shanta tiir oo maxaan ku yiraahdaayay ay shantiiba saddex afar ka mid ihi ay dhamaystirmeen marka habeenkii u dambeysay ee 10ka January Qaashim Faarax wuxuu inoo sheegay laba tiir oo aad u muhiim ah oo aynu wada sugaynay inay dhamaystirmeen kuwaas oo kala ah domainka iyo maxaan ku dhahdaaye data centerka marka waan jeclahay inaad iyadana aad noogu dul istaagtid waxa ay tahay ICANN oo ay shirkadda Mombasa inoo sheegtay inay domainkeedii ICANN ay maxaan ku yiraahdaaye ay u ogolaatay bal arrimahaas maadaama engineer IT oo xog daloolaa tahay noo sharax insha Allah waa maxay ICANN walahi aad baa u mahadsan tahay insha Allah waxa way waxaan galaynaa casharkiina aan galaynaa insha Allah waxa weeye ICANN waxa weeye waa xarunta dhan oo maaragtay kambaniyada sameeya domainada bixiya ay iska duwaan geliyaan sida GoDaddy, Bluehost, DreamHost oo domainka hadda Mombasa mataqaana ay iska duwaan gelisay marka oo kaan waxay sameeysaa standard loogu talagalay in lagu ilaaliyo internetka maaragtay in lagu ilaaliyo waxa la yiraahdo security-giisa iyo badqabka internetka iyo stability-ga maaragtay jiritaanka inuu mataqaana internetku mataqaana uu qaalaasa ama IP la isku qabsado ama domain la isku qabsado kambanigana marka uu controlaa wixii mataqaana isaga wuxuu bixiyaa waxa loo yaqaano magac uu kambanigu la baxaa kambani walba oo bixinaya waxa loo yaqaano domain bixinaya oo waxa la siiyaa waxa la yiraahdo number waxa la siiyaa magac la siiyaa numbersna waa la siiyaa kambaniga marka wuxuu sameeyaa isagu waxa loo yaqaano waa company isagu is a non-profit organization and responsible wuxuu mas'uul kaliya ka yahay inuu ku sameeyo waxa la yiraahdo coordinating waa maxay inuu kormeero jeegareeyo manage gareeyo oo global domain ka jira adduunka oo dhan waxa weeye waa company-ga maamula oo maaragtay xogtaas company walba marka oo halka ka diiwaan gashan waxa uu leeyahay number lagu yaqaan GoDaddy number ku leeyahay wuxuu kaloo leeyahay magaciisana waa GoDaddy Mombasa magac ay leedahay oo domain baa la yiraahdaa numberna waa leedahay saas marka hadda waxay ku bixinaysaa in mataqaana domain ku bixinaysaa domain marka domain name-ku wax kala ma aha domain name-ku waxa lagu bedelaa waa DNS serverku waa IP address domain-ku wax kala ma aha waa number computerku wuxuu ku shaqeeyaa number buu ku shaqeeyaa oo hadda computerka caadiga ah ee laptop-ka kale wuxuu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa waxa la yiraahdo 0 or 1 0 waa markuu computerku dansan yahay 1 kuna waa markuu daaran yahay marka computerku wuxuu fahmaa waxa la yiraahdo machine language bini'aadamku wuxuu fahmaa human language machine-ku wuxuu fahmayaa marka numbers buu fahmayaa bini'aadamku wuxuu fahmayaa waxa mataqaana language oo luqadaha kala duwan qofka bini'aadamka fahmaya marka adigu hadda magac la qoro magaca isagu wuxuu haystaa number laakiin adiga wuxuu ku tusayaa magac ahaan buu ku tusayaa systemku wuxuu fahmayaa equivalent asugu maanin labadaas ay saaran adoo magacaas aragta isagana wuxuu haystaa number hoos ku qarsoon marka DNS wax kale ma aha waa number magac la baxday GoDaddy ama Mombasa baa la baxday magaca Mombasa baa la baxday waxa weeye company uu la baxay domain name buu leeyahay IP address buu leeyahay ku hoos qarsoon
إذا قفوا أي بي أدرس أما النمبر ما حفتيه كرو لكن أمباسك وقري كذا قفوا مركو أمباسك كرو وحال سكوا هذين النمبر كي يو دي إن إس كي كدينا قفوا سيدي بقى وحوي سيستم أسير جكرينيا وحال لو جينيا ويب سايت كي أمباسك أي لهاي أو فايلش يدوكيومنتيد ريسورس يحكتي أي كوك السنة قالوا جينيا مركا دي إن إس كو isku bedelaa magaca company la baxay Ambasif wuxuu u bedelayaa IP address buu u bedelayaa kadib markaas wuxuu ku geenayaa location-kii ama xogtii ama datadii meesha lagu keenay oo hostiga taalay waa tagaysaa kadibna waxa weeye saasay marka xogtaasi u shaqeysaa marka ay nadwaguna wuxuu ku shaqeeyaa computer walba oo khadka ku jira wuxuu haystaa IP address number buu haystaa aan cidina la wadaagin بريفت وحيستا ميد لوكال وحيستا حدونا وحيليا مركو خدك عادي انترنت كقلنا فلسطينية public network فلسطينية و اي بي ادريس فلسطينية او ان عندنا قوه قبسنه waxa jira wax kale oo la yiraahdo physical address oo shay walba wuxuu leeyahay unique u ah oo aan mid la wadaaga waxa lagu kala saaraa deviceska kala duwan waa lagu kala saaraa marka DNS ku waa IP address loogu talagalay nadwalba in lagu isticmaalo kadibna magaca qoratay sida aamina qoran oo kale www.aaminaqorane.com marka qorto page-ka aad samaysatay waxa ka hooseynaya number IP address lagu siiyo oo DNS-ka marka aamina qoran lagu dhufto click la siiyo wuxuu isku geenaya page-kii aamina qorane uu page-keeda ku tusayaa wixii xogtii ay soo gelisay iyo meesha ku qorneyd faylashii dokumentiyadii datadii reportkii meeshii ku oolaadan soo baxaya sidoo marka kadibna marka waa maxay waxa allocation ay adeeska lagu bedelayo it plays a crucial role marka waxa weeye doorka uu ciyaaraa company kana waa maxay inuu hubiyo stable la ka dhigo security-ga operation of the internet qaabka internet-ku u shaqeynayo inuu ilaaliyo habsami socodka internet-ka adduunka inuu ilaaliyo qaabkiisa iyo nidaamkiisa uu ka shaqeynayo marka company walba oo raba inuu isdiiwaan geliyo company-gana u tagaya waa isdiiwaan gelinaya saas marka wuxuu ku sii bixinayaa domain ku sii bixinaya marka domain-ku wax kala maaha waa magaca company-ga oo la bixiso magaca company-ga oo la bixiso marka waxa laga rabaa inuu noqdo magac dadka customer-iska ah ama aad rabto dadka aad rabto inay soo booqdaan page-kaaga soo booqdaan inay noqdo magac soo jiita oo maartay ku habboon oo waxa aad ka hadlayso ama waxa aad ku jirto ka turjumaya oo dadku markay magaca arkaan iyo magacaas soo raacaan uu noqdo magacaas mid macna xambaarsan oo markaana markii la arko dhawaanka la arko markaana page-kaaga magaciisa la arko oo lagu dhufto qofku marka xogti waa helaya laakiin haddii magacyo khiyaali iyo magacyo aan jirin magacyo laga cararayo aan qoro hadda waxaas domain maaha nin walba wuxuu isleeyahay wax kan wax ciyaar u moodaya laakiin wax meaningful ah oo qofku fahmi karo oo qofku markuu arko la customer-iska ah uu kugu soo ordayo magaca marka uu kugu soo raaci karo oo adigana micno kuu sameynaya inaad samaysato waa ka fiican marka magacyada qaabka daran iska daaya magaca baa laga rabaa customer-iskaaga iyo dadkaaga mataqaana ugu xiran soo jiidan kara adigana mataqaana aad hore ugu sii socon karto marka waxaa ka mid ah GoDaddy, Bluehost, Dreamhost oo domain oo Ambasif ah company marka wadda ugu caansan GoDaddy waa kan daniya ugu caansan GoDaddy waa kan marka magacyadana marka magacyo qurux badan insha Allah inaan samaystaan rajeynaya sidoo kale waysta domain name wax kale ma aha waa magaca URL waa maxay waa meesha lagu qoro magaca kor browser-ka halkaas waxa loo yaqaanaa magaca gelinaysid baa waxa loo yaqaanaa URL baa loo soo galay waa Uniform Resource Locator waa magaca aamina qorane.com markaan geliyo intaas waxa loo yaqaanaa Uniform Resource Locator marka waa meesha lagu qoro visit your website meesha xogta daatada ama Gmail-ka ama Google-ka aad ku qordo halkaas waxa loo yaqaanaa visit your website marka URL-kuna waa intaas www.aaminaqorane.com taas waxa loo yaqaanaa URL sidoo kale examples-ka waxa kamid ah sida Google oo kale www.google.com www.ombasic.com www.facebook.com sidoo kale waxa jira URL overview waa waxa u qaybsan wax loo yaqaano protocol baa ka horeeya oo HTTP
HTTP gaasi macnaheedu waa security iyo waxa in la ilaaliyo xogta la ilaaliyo daatada la ilaaliyo weeye daatadii in la ilaaliyo sidoo kale waxaa jira subdomain waa subdomain-ku waa maxay waa www.com sidoo kale waxaa jira kaa kalena waa magacii aan la baxday aaminaqorane.com waa domain name-kii wey magacii wey data kalena waa director waa xogtaadii resource-gaagii waa meeshii xogtii daatada kuu taalay uu ku geynaya marka domain-ku wax kala maaha waa name is the address of your website waa magacaaga campaign ula baxday mataqaanaa website-kaaga ula baxday waxaa loo yaqaanaa domain wax kale marka wax kale maaha hana ku wareeri tusaale waxaa ku ah Google Bombastic Facebook sidoo kale waxaa jira IP address-ku computer la IP address ma jiro computer walba wuxuu leeyahay unique address loogu talagalay identify device on internet markuu internet ku jiro hadduu local yahay iyo hadduu yahay mataqaanaa public-gaba IP address baa leedahay IP address kasta waxa weeye network ku isticmaalaysaa kuna jiraysaa computer la IP address ma jiro computer walba hadda shaashadaas sawirka shaashadiisa waxaa ku qoran 192.168.0.73 marka halka ku qoran kala weeye IP address-ka lagu sheegayo waa intaasoo dad weeye marka laptop walba number noocaas oo kale ah way kala duwan yihiin way class kala leeyihiin class A class B class C fara badan yihiin marka network-gaasi network-ga loogu talagalay in aan la isku qabsan oo computerada ama qalabka internet ku jira saysan u dhicin wax loo yiraahdo IP conflict oo aan IP-da la isugu qabsan waa mid walba waxa la siiyay IP loogu talagalay kaasoo haysanaya intuu network-ga iyo khadkaas ku jiro kaasoo isticmaalaya IP-gu wuu bedelan karaa computerku hadduu saacado waayo mid kale la siinayo kii u taagnaamayo haddii laptop-kaaga aad demiso ama mobilkaaga uu khadka ka baxo oo mataqaana aad daatadaada xirato ama wireless-ka aad ka tagto IP-ga haysatay qof kale la siinaya IP-ga iska haysan maysa computer kale la siinaya hadhow waa markuu banaanka soo istaago oo mataqaana wax isticmaala waayo computer kale oo hadhow khadka soo galay baa la siinaya marka saasa waxa weeye network-gaasi IP address-kaas uu saas mar walba ku shaqeynaya waxaa laga yaabaa inaa asbuucba mid ama labadii beriba mid haysato oo different IP address kala duwan aad hesho daatada marka waa maxay halkaasay markaa local network iyo maaragtay iyo kaa public aba kaasaa ku xamalaya marka waa maxay waa number loogu talagalay in lagu kala saaro computerska ku jira network-ka kuma qabsan karo marka kuma jiro marka sidoo kale waxaa jira domain name system domain name-ku waa kaadaan soo sharaxaynay DNS servers waa convert URL domain names into the IP address DNS server-ku wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano magacaagii meesha kugu qornaa sida Google Bombastic ama www.aaminaqorane.com soo maaha magacaagiiba wuxuu u bedelayaa waxa loo yaqaano IP address computerku wuxuu fahmayaa waxa la yiraahdo understanding computer wuxuu fahmayaa address IP address buu fahmayaa that computer can understand and use so IP address buu isticmaalaa marka waxa kala bedelaya waa DNS server-kaas wuxuu bedelayaa URL ku bedelayaa kadibna markuu bedelo wuxuu samaynayaa URL-kaas markuu bedelo wuxuu samaynayaa u bedelayaa IP address si markaa aad xogtaada u gaarto marka wax kale ma aha waa magacii waxa loo bedelaya maadaama machine-ku uu fahmayo IP address-kii baa waxa loo bedelayaa mataqaanaa magacii baa IP address loo bedelaya si markaa aad safarkii ama internet-ka u gasho xogtiina aad u hesho sidoo kale web hosting waa maxay waa web hosting waa meesha web page-kaaga ama website-ka adu aad leedahay meesha uu ku saaran yahay waxa loo yaqaanaa web hosting waa maxay is online service that makes your website contents meesha xogtaada ku jirto way accessible on the internet marka internetka laga access gareynayo waa meesha ay iibsato hostiga meesha iibsato sidoo kale waa maxay waa renting space waa meel laga kireynayo oo kiro laga qaadayo sidoo kale waa physical server to store data website fileskaga iyo documentigaaga iyo datadaada iyo xogtaada waxaa ku kaydsanaysaa halkaasaa ku kaydsanaysaa halkaas marka web hosting wax kale ma aha waa inta kaliya waa meesha uu ku saaran yahay website-kaaga waxa loo yaqaanaa web hosting waxa laga qaaday bishii kira bil baa laga qaadaya ama sanada la bixisa subscription baa la bixisa sanad la ah ama bila la bixisa thanks aad oo maasan tahay waa macna aan qorole salaamaya waa
جزاك الله خير محمد.